السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان برشوينta Soomaaliyeed aad iyo aad baan salaamaynaa. Waa kamanigeeni weynaa Forever Living Product iyo alaabteena qayb kamida. Maanta xaga waxaan iigu soo bandhigaynaa waxa weeyaan waa qayb kamida wax soo saarkeena taasoo ah qaybta miisaanka ama miisaan dhimida. Qaybtan miisaan dhimida waxa loo yaqaan C9ka. Marka waxaan ku soo qaadan doonaa sida uu shaqeyso. halka iniga muuqata waxay ka kooban tahay laba caagadood oo dacara oo kuwana borotiinki oo ay ku jirto 24 gram oo borotiin oo kan bacda ku jira caagadii lagu qasanayay iyo sidoo kale halkan waxa ku jirta bogoskan fiberkii cuntooyinkii galka lahaa waxa ku jira kiniinkii baruurta gubayay intii ba ku jirto oo cuntooyinkii fiberkii ay kamid yihiin waxa ku mida kuwan oo kan oo loo yaqaan karsina plus oo baruurta guba iyo kan oo time leedahay ama teedkan yar hoos u dhiga cabirkii ba sidoo kale la socdo oo qofku jirkiisa ku cabirayo buug ba la socdo buugaasi wuxuu ka caawinayaa isticmaalka alaabta tan waxa weeyaan waa maalinta koobaad ilaa maalinta labaad qofku waa maalinta uu challenge-ka ugu badan uu marayo miisaankiisa sida ugu fiican uu ku ridi karana labada cisho wax cunto uu isticmaalaya ma jirto wuu soomayaa qofku wax yaro gaajada ka yara biisuun buu isticmaalayaa laakiin cuntooyin badan ma qaadanayo sida iniga muuqatana 5 waqti ayaa la isticmaalaa waqtiga quraacda xilliga barqada qadada cashada iyo habeenkii sidaas uu soconayaa qofku xilliga quraacda wuxuu qaadanayaa qofku 2 midho kiniinka karsina plus waa ka weeyaan halka dambana uu kaga qoran tahay oo waa timeka karsino plus oo xaga ay kaga qoran tahay oo halka dambe way ku qoran tahay marka isaga laftigiisa way ku qoran tahay xilliyada la qaadanayo waa quraacdi qadadii iyo cashada marka 2 midho karsino plus ayuu qofku qaadanayaa labada markuu qaato wuxuu sugayaa mar walo kiniinka yar la qaato baruurta gubaya 30 daqiiqo ayaa la sugaa 30 daqiiqo programkan waxa ugu fiican xilliga aroortii la bilaabo xilliga salaada subax markuu qofku uu soo tukado markuu inta uu qaato 30 daqiiqo sugo oo uu 30 daqiiqo sugo wuxuu isticmaalayaa aloe vera gel dacarta oo wuxuu ka qaadanayaa dacarta ayuu isticmaalayaa ilaa 60 ml wuxuu dhowr siyaabood buu cabiri karaa wuxuu ku cabiri karaa wuxuu ku cabiran karaa slish buu ku cabiri karaa amba koobka koob baxan ku jira koobkaasi oo miligramku uu ku qoran yahay markuu inta isticmaalo aloe vera gel-ka uu isticmaalo wuxuu isticmaalayaa kiniinka yar teemka waa ka yar weeyaan markuu teemka isticmaalo wuxuu isticmaalayaa oo inta ku xigsiinayaa wuxuu isticmaalayaa marka exercise-kaas waa cardiac exercise weeyaan oo wadnaha dhaqaaqiisa bedelaya maha socod maha iska fadhi waa gucleyn weeyaan yar uu sameeyo xilliga barqadii halkii uu shaaha ka cabi jiray wuxuu qaadanayaa Forever Fiber oo taayaro starch ka yar ayuu qaadanayaa biyo yar oo diiran soo qaadanaya uu ku daranayaa markuu ku daro deetana uu walaaqanayaa qofku xilliga qadada marka la gaaro wuxuu isticmaalayaa 2 midho karsino plus oo kiniinkaas baruurta gubaya wuxuu sugayaa 30 daqiiqo markuu sugo 30 amba exercise buu sameyn karaa amba uu yara jimicsan karaa waxyaabo intaas uu sameyn karaa wuxuu ku xigsiinayaa aloe vera gel dacartiyo sharaaba deetana wuxuu ku xigsiinayaa borotiinkan hal mulqaacadood buu soo qaadanayaa halka qaada markuu deetana caagadan buu ku qasanaya halkan buu ku darayaa mulqaacadii ilaa 300 oo ml oo biyo ah 300 waa ilaa halka weeyaan ilaa halka ayuu joojinaya halka 300 ku qoran tahay kadib 300 uu luxaya deetana xaga soo cabay cunto ahaan buu geli karaa markuu inta cabo wuxuu isticmaalayaa kiniinka yar ee teemka markay gaadho cashadii xilliga cashada karsi wuxuu isticmaalayaa kiniinka oo labadii ugu dambeeyay marka kii yar raaba halka ka baxay oo ka 30 daqiiqo ayuu sugayaa kadibna deetana dacarta oo sharaaba ayuu isticmaalayaa dacarta markuu isticmaalo sidaas uu sameeyaa ilaa maghribkii marka ay tahay habeenkii markuu sii seexanayo dacartii 60 ml iyo biyo badan ayuu isticmaalayaa marka waa maalinta koowaad iyo maalinta labaad saas uu la soconaya maalinta saddexaad ilaa maalinta 9aadna sidii caadiga ahayd ayuu qofku marayaa halkii ayuu wadaya marka maalinta koowaad iyo maalinta labaad cuntooyinku muhiim ma aha oo cunto ma qaadanayo laakiin wixii maalinta 3aad ilaa maalinta 9aad wuxuu isticmaalayaa qofku cuntooyinka borotiinka leh
wuxuu joojinayaa wixii carbohydrate-ka bariiska baastada daqiiqda sonkorta sharaabka badan shaaha badan waxaasuu joojinayaa exercise buu samaynayaa beans buu ayuu qaadanaya cuntooyinka aroortii oo kale beanska beedka wuxuu isticmaalayaa cuntooyinkan fiberka ee cunto wadanida ayuu qaadanayaa misirka waxyaabaadka borotiin ku badan yahay ayuu qofku qaadanaya miisaan fiican ayuu ku ridayaa oo aad iyo aad u wanaagsan oo badan intaana jirkiisa uu la soconaya aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu